الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أرضيدا كحيران برشوين كحيران إغلا education program وعشر كلا أو هورله أو biology عشر كان وحن كجاه اللي دونا هدي لهي إذن كيس كديجو وحلو يقانو deviation كو وحلي هذا وورحي إن أي particles أي كوفي ده ماشي أي يدو كتجيسه هلك أي كويرتهاي آديسه halka ay ku badan tahay hadaba qaabkan ku soo kordhinay casharradeena oo aad la socotaan oo ah in hordhaca casharkan ku sheegno casharkan marka dhameysatid waxa aad ka faa'iidi doontid hadaba casharkaani marka dhameysatid insha Allah ta'ala waxaad ka faa'iidi doontaa waxa la yiraahdo describe what it means by deviation inaad qeexi kartid deviation-ku waxa uu yahay inaad si fudud u qeexi kartid deviation-ku waxa uu yahay marka casharkan dhameysatid insha Allah ta'ala labo waxa la yiraahdo inaad qeexi kartid describe the function that affects the rate of deviation iyo waxyaabaha waxa la yiraahdo saameynta ku yeelanaya heerka deviation-ka in waxa la yiraahdo walaxi ku fido meel ay waxa la yiraahdo ay ku fido meel ay ku yartahay iyadoo ka tagaysa halka ay ku badan tahay halka ay ka tagan tahay ayay walaxdaasi particleskaasi ka tagayaan waxay tagayaan sabab marka waxyaabaha keenaya in heerkoodu uu sareeyo ama heerka deviation-ka uu hooseeyo labadaas walxood ayaa waxa la yiraahdo ka faa'iido doontaa inaad si fudud u sharaxi kartaan okay waayahay hadaba ka hor inta aanan casharkayga gudaha noo gelin sidoo waxa la yiraahdo cell-ku waxaanu sheegnay hore u soo sheegnay cell-ku inuu leeyahay waxa la yiraahdo cell wall sida plant cell-ka kala cell wall buu leeyahay animal cell-ka cell membrane buu leeyahay waxa la yiraahdo waxaanu sheegnay cytoplasm waxaan sheegnay mitochondria waxaanu sheegnay waxa la yiraahdo dhamaan walxahaas oo dhan inuu ribosomes inuu cell-ku leeyahay mid walba inuu shaqo gaar ah qabto ayaan hore idinku soo qeexnay hadaba cell membrane-ku ayaa waxa la yiraahdo deviation-kaani ku shuqul leh so cell membrane is where the molecules enter and leave the cells cell membrane-ku waa halka waa meesha waxa la yiraahdo kaalinta ugu muhiimsan ah waxa la yiraahdo ma jirto meel kale waxa la yiraahdo controlsho waxa cell-ka galaya iyo waxa ka soo baxay marka cell membrane-ka waa halka laga controlo maxaa cell-ka gudihiisa galaya maxaa ka soo baxaya cell-ka waaya hadaba marka aanu qeexno deviation waa maxay deviation maxaa ku qeexi kartaa English ahaan iyo Soomaali ahaan fahankaaga deviation is the spreading out of the particles resulting in the net movement from an area of higher concentration to an area of lower concentration. So, marka deviation waxa weeye deviation is spreading waa in walxi fido waa in waxa la particleskaasi ama waxaasi ay fidaan moleculeskaasi out okay spreading out of particleskaasi inay spreading sameeyaan oo ay fidaan okay resulting ayaga oo sababaya fiditaanka waxa weeyaan inay meel ku walaxdii laftirkeeda particle-ka inay ballaaranaysa maaha laakiin inay meel ka tagayso oo meel kale waxa la yiraahdo ay tagayso meel aysan joogin ama ay ku yartahay ay tagayso so taasoo resulting taasoo macnaheedu waxa la yiraahdo dhalinaysa ama keenaysa oo ka dhalanaya in a net movement in totally say u dhan yihiin ba waxa la yiraahdo particleskaasi ay movement sameeyaan dhaqaaqaan from an area ay ka dhaqaaqaan halka of higher concentration ee walaxdaasi ribnaanteeda ay ku badan tahay to an area iyadoo markaa aadaysa of a lower concentration walaxdaasi ribnaanteeda halka ay ku yar tahay tusaale ahaan maxaa kamid ah moleculeskan waxaa kamid ah oxygen-ka waxaa kamid ah carbon dioxide-ka iyo waxaa kamid ah urea-da saddexdaas waxa la yiraahdo cell-ka uu ku shaqeeyo midna wasakh ahaan ayaa loo soo saarayaa midna oxygen-ka kale cell-ka uu qaataa hadhowtan respiration kadib waxa la soo saaraa carbon dioxide oo wasakha also waxa kaloo laga soo saaraa cell-ka urea ayaa cell-ka laga soo saaraa hadaba mid ayaan u dul istaagi doonaa okay hadaba waxa la yiraahdo cells need unugyadu waxay u baahan yihiin oxygen bay u baahan yihiin okay for respiration-ka ayay waxay u baahan yihiin oxygen respiration-ka inta badan wuxuu ka dhacaa saan ognahay mitochondria ayuu ka dhacaa marka respiration-ka waxa weeyaan in energy la soo saaro oo cell-ku ku shaqeeyo okay which is carried out waxa la respiration-kaasoo uu fuliyo ama ba qabto waxa la yiraahdo by mitochondria ayaa respiration-ka cell-ka u qaabilsan okay oxygen ayuu u baahan yahay marka ka bacdi maxaa dhacaya cells are surrounded
cellska waxaa surround gareeya cellsku waxaa surround gareeya sida halkaan idinkaga muuqataba waxa la yiraahdo a higher concentration of oxygen waxa ku hareeraysan waxa la yiraahdo concentration ama cadad aad u fara badan oo oxygen ayaa cellka ku hareeraysan waaya oxygen is transported oxygenkii ayaa waxa la yiraahdo wuxuu ku gudbayaa in a blood waxa lagu soo xambaarayaa ama lagu soo qaadayaa in a blood stream from lungs asagoo waxa la yiraahdo laga keenayo blood streamka dhiig ayaa soo qaadaya marka wareega dhiiga ayuu soo raacaya asagoo ka imanaya waxa la yiraahdo lungska ayuu ka imanaya waaya oxygen moleculesku move into the cells oxygen molecules inta ka bacdi waxay aadayaan ayagoo dhiiga ka tegaya ayaa waxay gudaha u galayaan waxa la yiraahdo unugyadii cellski the diffusion from an area of high concentration for an area of a lower concentration marka wuxuu ka tegayaa halka uu ku badan yahay oo ah dhiigii wuxuu aadayaa halka uu ku yar yahay oo ah cellka gudihiisa sababtoo ah waa la isticmaalay respiration ahaan ayaa loo isticmaalay waaya oxygen is used oxygenka maxaa loo isticmaalaa oxygenka waxaa loo isticmaalaa to generate energy in waxa la yiraahdo lagu soo saaro energy in la soo saaro in respiration processka respirationka ayaa waxaa loo isticmaalaya oxygenka in la soo saaro waxa la yiraahdo energy and this produces shaqada marka la qabanayo waxay sababaysaa inay soo baxaan the waste gas carbon dioxide in carbon dioxide waxa la yiraahdo la soo saaro ayay dhalinaysaa waxa la yiraahdo shaqadaas marka shaqada la qabanayo oxygenkii la isticmaalayo in energy la soo saaro ayaa waxa ka dhalanaysa wasakh carbon dioxide carbon dioxide oo waste ah ayaa ka dhalanaya u baahan jirka in laga saaro cellka laga soo dhex saaro marka we have higher concentration of carbon dioxide inside the cell than outside so cellka gudihiisa waxaanu haysanaa carbon dioxide aad u tiro badan marka loo eego cellka dibadiisa sababtoo ah waa halkii shaqadii ka dhacaysay waa halkii asagoo wasakha laga soo saaray marka khasab waxa ah in banaanka cellka looga saaro waxa la yiraahdo carbon dioxide kan wasakhda so carbon dioxide moves outside of the cell by the diffusion qaab diffusion ah ayuu waxa la yiraahdo carbon dioxide ku uu uga soo baxaya cellka gudihiisa waaya waxa kaloo marka asoo soo qaadanayna ureada carbon dioxide ka waa aragnay oxygenkana waa aragnay ureadu ayadu waxa weeyaan is the waste product waa wasakh cellka uu gudihiisa soo saaray produce inside the cell cellka gudihiisa ayaa laga soo saaray ureada so it diffuses out waxay waxa la yiraahdo uga soo baxaysaa cellka gudihiisa processka diffusionka the cells so into the blood plasmada dhiiga plasmada ayay ka bacdina soo raacaysa then maxaa dhacaya extracted by the kidneys kiliyaha ayaa ka miiraya marka kiliyaha ayaa waxay ka miirayaan waxa la yiraahdo dhiigii bay ka dhex miirayaan dhiigii ureada la socotay ayaa laga miirayaa ureada wasakhda ahayd ka bacdina kaadi ahaan ayaa loo saarayaa sidaanu casharka hore haddaba maxaa ku yeelan kara saameyn waxa la yiraahdo diffusionka in walaxdani waxa la yiraahdo ay ku fido meesha ay ka fido meesha ay ku badan tahay iyadoo tegaysa meesha ay ku yartahay sida aan sheegnay carbon dioxide-kii oxygen-kii iyo ureadii marka waxaa jira kaalin ka qaadanaya in diffusionkaasi uu noqdo mid waxa la yiraahdo aad u sareeya iyo inuu noqdo diffusionkaasi mid hooseeya haddaba gradient concentrationka waxa la yiraahdo gradientiga ama waxa la yiraahdo moleculeska oo kale tusaale ahaan haddii oxygen tira badan cellka dibadiisa uu joogo numberka oxygenka uu higher concentrated uu yahay taasi waxay kalifaysaa marka in waxa la yiraahdo diffusionka uu higher noqdo oo si awood leh waxa la yiraahdo number tira badan oo oxygena ay gudaha u galaan waxa la yiraahdo cellka waaya maxaa kaloo sababi kara temperatureka the higher temperature the greater the rate of the diffusion haddii heerkulku uu aad u sareeyo taasina waxay keenaysaa waxa la yiraahdo rate of diffusionka inuu kor u kaco sababtoo ah waxaa meesha markaa jiraya kinetic energy ayaa marka wuxuu dardar gelinayaa waxa loo yaqaano diffusionka okay large surface of the cell membrane-ka haddii surfacekiisa uu aad u weyn yahay oo surfacekiisa aad u weyn yahay baaxadiisa ay weyn tahay the greater the rate of diffusion waxaa aad u sareynaya iyadana diffusionka dhacaya ayaa wuxuu noqonayaa higher casharka xiga wuxuu noqon doonaa insha Allah taala osmosis
osmosis kadibna markaasi si aanan ugu jahwareerin ardayda badan way ku jahwareertaa diffusion iyo osmosiska waxay kala yihiin waxaan ku xijin doonaa farqiga u dhaxeeya osmosiska iyo diffusionka aad waa mahadsantihiin insha Allah ha ilaawina inaad share garaysaan page-kayga waxa la yiraahdo channel-kayga YouTube-kana aad subscribe garaysaan uga faa'iideeya ardayda kale ee u baahan casharkan waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.